بسم الله الرحمن الرحيم أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتو أنا وناكسن كسر دبا جنال كين وركي ودن بي سبورتس anta waxyaabihii laga dhahay kulamada maanta la filayo iyo kuwii xalay toolay badhacay sidoo kale Real Betis oo garaacay Real Sociedad meeqa ay ku kala adkaadeen sidoo kale Lyon oo xalay gool weyn ka gaartay dhigeeda Angers wax walba ugu baahan tahay kulamada maanta 8 saac bar waa Derby Merseyside yeysan ku seegin ciyaartii ugu adkeed ayaa la dhigi karaa balse caawa hal saac bar English Premier League waxa wada dheeli doono Manchester United iyo naadiga kubadda cagta Chelsea salaad isha kor ayaa la baas doona sidoo kale Real Madrid oo liiga dheeleyso halka Serie A AC Milan ay ka dheeleyso halka Bundesliga Bayern Munich ay u cadcadahay kulamada maanta sidoo kale Faransa oo kulamo xasaasi ah ka jiraan Saudi Pro League-na Al Nassr ayaa ka ciyaari doonta iyo sidoo kale Al Ittihad oo iyadana Al Najma wajihi doonto inaba caadi maan waa arki doona ciyaarahaas iyo suuq kala iibsi dhacdooyinka laga qoro kulamada la filayo caawa kusoo dhawaada janaalka ku cusub yaa fadlan subscribe nasar lag lasiin share galay waa kala mahadcelina daawashada muuqaalka soo dhawaada saaxiibayaal wax walba ugu baahan tahay ciyaaraha maanta dhacayo ilaa caawa 4 saac insha Allah saas ayaa dulmari doona laakiin waxa ka codsanaa inaa muuqaalka haduu ku soo gaaro like noo saarto siin share gareyso insha Allah waxa rajeynaa inuu muuqaalka si fiican ku soo gaari doono laakiin adigina ka garbaxo halka dhaxal ah ku leeyahay ama project inaga dhaxay kaliya oo yahay in muuqaalka duu ku soo gaaro laagana saartid siin share gareyso inta la wadaagi kartaa la wadaagta asxaabtaada kugu dhadhow waliba insha Allah waxa ku bilaabi doona intaana aadin daafaca caalamka ciyaaraha ka jiro maanta waa maalintii Muqdisho City Club dowladda hoose xamar naadiga matasho MCC ayaa ciyaari doonta tartanka CAF Champions League marka inaba caadi maahan waxa leeyahay diyaargarowga ugu dambeeyay ay ku jireen maantana waa maalintii ciyaar lahayd MCC ee Kenya ku dheeleyso saamuqaaladeena horeba aan igu sheegnay insha Allah waxa rajeynaynaa in dadka reer Kenya tikedyada jartay ama Uganda joogan ama Soomaaliya ka baxayba aad ay u soo dhaweena guul ayaan u rajeynaa sidoo kale waxa leeyahay dadka jooga Soomaaliya ama Muqdisho xamar dadka jooga waxa leeyahay maanta meel qaas oo lagu daawan karo ciyaarta hadii aad u baahanta waa diyaar gudoomiyaha taageerayaasha MCC gabadha ah ayaa waxay leedahay maanta waxa noo balanaya Rio Plus insha Allah 20 September maanta waay 10 galabnimo ama 4 galabnimo ama 10 saac casr meeshii lagu baxo Rio Plus ay ciyaartaas laga daawan doonaa taageerayaasha dhamaan MCC kuwa Soomaalida naadiyaasha kala taageeraan maadaama qadiyad Soomaali ay jirto wadan kale ay ka dheelayaan naadiyaal kale oo Kenyaati ay u baxayaan marka waxa waaye inaba caadimaan Police FC ay u bixi doonaan marka waa arki doonaa guusha galabta Badir Amiin xirtiisana ay ka qayb galayaan waxay ka keenay doonaan sidoo kale waxa la arkay maalintii dad badan ayaa imaanaya garoonka oo si xad dhaafa naadiga garab u siinayo garab istaag u muujinayo agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka bulshada Hirshabeelle Maxamed Shoore yar ay dhahayaan iyo fanaaniin nagay ayaa garoonka wada tagay sidoo kale gudoomiyaha kooxda gaadiidka Bile Maxamed ayaa la arkay sidoo kale qaar kamid ah Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya ayaa bogaadin iyo dhiirigelin ugu tagay inay muujiyaan garab istaaga ay u hayaan MCC oo matalayso dowladda hoose gaar ahaan Soomaalida oo dhan magaceeda ku socota marka guul ayaa loo rajeynaa insha Allah adigana ku caabi inay gool gaaraan hadii aad u sacabtumi kartid hadii niyada aad ka daawan kartid hadii aad Rio Plus ama Astana soo deynayso Asra soo deynayso marka meel walba ka daawan kartaa marka waxa leeyahay macallin Badir Amiin ilaa 3 gool hay ayuu soo saftay Lambasa Elhansi iyo Abshakur sidoo kale daafacyadana Juma muddo ciyaaryahan ay dhahaan Usama Habad Walij Al-Uud Said Maxamed iyo Khalid iyo Ciise ayuu soo xushay dhanka daafaca halka qadka dhexe uu soo xushay Bangwara Ibrahim Bangwara Ali Yare Salfin
Bashir sidoo kale Elias Santos Cusmaan sidoo kale Biskas sidoo kale Saga halka weerarka uu soo xushtay Cabdiqaadir Eeno Aadan Banteke sidoo kale Marses sidoo kale Benjamin Faisal Stefan Mark imaha inna caadi maahan macalinkana waa didiraamin insha Allah gool u rajeyna intaas ay ugu bixina kulamada maanta English Premier League maanta kulamadii hore way ka dumayeen kulamadan waxa leeyahay waxa la galay heer inaba caadi ahayn naadi walba waxay soo dheeshay markaan kulamo ilaa 4 kulan wareeg shanaad ama round 5 ayaa la galayaa iyadoo la ciyaari doono maanta ilaa ku dhawaad 5 kulan ka badan ayaa leeyahay 9 kulan kamid ah maanta ay dhici doonaan 7 kulan ayaa la dheeli doonaa maanta oo English Premier League ka tirsan waxaan u horeynaa kubadda cagta Liverpool oo soo dhaweey doonta dhigeeda Everton Derby Merseyside hadaan maqashid waa la isku lafguraa waa la isku lafadhigana waa la jijibina marka waxyaabo badan Arnold slot time waxa waaye slot time ama waxaas in maanta la soo gabagabay doona ila tahay maadaama derby ay ka hor imaan doonaan laga yaabeen inay durduriyaan marka naadi kubadda cagta Liverpoolna waa tahay waxay u bixi doontaa naadi kubadda cagta Everton shantii kulan ugu dambeysay waxa leeyahay marna hali ever waxa ku adkaada Liverpool halka 2-2 la galay kulan 2 ever ku adkaatay naadi kubadda cagta Everton sidoo kale 2 ever ku adkaatay naadi kubadda cagta Liverpool halka 2 ever kale ku adkaatay naadi kubadda cagta Liverpool marka kulan bareeja la galay inaba caadi maahan marka 6dii kulan ugu dambeysana saas waayo Liverpool ay gool badan totalna waxa leeyahay 16 kulan ay waxay wada dheeleen 16 kulan 16 kulan Liverpool adkaatay halka 3 kamid ahna ay adkaatay naadi kubadda cagta Everton 14 kulan bareeja gal taariikhda inta iswajihin inaba caadi ma mar kulankaas la sugaa 11 saac Brighton iyo Tottenham Hotspur ay dheeli doona Burnley iyo Nottingham Forest sidoo kale West Ham United iyo Crystal Palace ay dheeli doona halka Wolves ay soo dhaweey doonto dhigeeda Leeds kulamada maanta Super Sunday maqli jirno Super Sunday kulan kale noo jira laakiin maanta ay taayinta waa Chelsea iyo Manchester United oo Old Trafford baa qod doonto Chelsea hal saac bar markii la gaaro caawa insha Allah ninkii nasiib u yeeshto noolo calaf iyo waqti u helo waa u daawa kara kulankaas hal saac bar dhanka geeska Afrika marka waxa leeyahay kulankaas kulan xamaasadiisa wato waay macna amroon inuu isdifaac rabo macalinka Chelsea Maresca oo asigana rabo inuu bandhigiisa sii wato aad iyo aadna waxa waay daneena inuu mar kale dartamo maadaama Club World Cup uu soo guuleystay season-kan Conference League qaade inaba caadi ma marka Chelsea oo booska afraad ku jirta 8 goolna banaanka u taal maanta waxay rabtaa inay gool darada ku sii wado naadi kubadda cagta Manchester United waana arki doonaan kulankaas wuxuu ka soo dhamaado insha Allah sidoo kale kulan waxa ka tirsan oo caawa lagu soo gabagabay doona English Premier League Fulham oo u dhici doonto Brentford kulan iska caadi ah masha Allah iska oo laakiin kulan dagaaleed laba naadi yar oo xifaaltan dhinaca ka yaqaanaan sidoo kale La Liga waxa ka jiro Real Madrid Espanyol 11 saac qadar 15 daqiiqo sidoo kale Girona iyo Levante Dylan Alaves iyo Sevilla Dylan Villarreal iyo Osasuna Valencia iyo Athletic Club ama Athletic Bilbao ay dheeli doonaan halka Serie A AC Milan ay dheeli doonto oo Udinese ay doonto halka Juventus oo labadii kulan ugu dambeysay 8 gool dhalse ay Hellas Verona booqadoon sidoo kale Bologna oo soo dhaweey doon Genoa halka Bundesliga la leeyahay Bayern Munich ayaa ugu weyn wax maanta dheeli doono Hoffenheim ayaa dheeli doon Leipzig iyo Köln inaba caadi ma marka waa arki doonaa Faransana Rennes iyo Nantes Brest iyo Nice sidoo kale Lens iyo kaliin marka Lens Lille ay soo dhaweey doontaa inaba caadi ma Saudi Pro League naadi kubadda cagta Ittihad ayaa Al-Najm booqa doonta halka Al-Nassr ay soo dhaweey doonto Al-Riyadh leey inaba caadi ma marka Al-Fattah iyo Al-Hazina way dheeli doonaan marka kulamada ugu adag
maanta waa ka waxyaabaha laga soo dhawaada waxaa leeyahay dhankan iyo Manchester United iyo waxyaabihii laga qoray hadda hal iyo laba ka taaban ninkii Bruno caawa 200 oo kulan oo safasho ah Manchester United gaari doona ayaa leeyahay nimankii Real Madrid ahaa waxaa leeyahay shantii kulan ugu dambeysay inaba caadi maahan waa ay wada badiyeen waxaana leeyahay laba kulan shaqo ay ilaashadeen halka saddex kamid ah laga dhaliyay Osasuna ay gooli waxba u adkaadeen saddex Real Oteba ay garaaceen halka 2-1 Mallorca ay ku garaaceen halka Real Sociedad laba gool u adkaadeen halka Champions League-na Marseille ay ku soo gabagabeeyeen la leeyahay laba gool oo dirqa ay u baxsadeen inaba caadi maan marka waa unbeaten shanteeda kulan ugu dambeysay ee seasonkan ee dhashay nimankii weli waxa la hadalhayaa Barcelona oo champion ku wacdaray oo naadi kubadda cagta Newcastle laba gool u adkaaday ninkii Rashford ahaa ayaa wacdar qabsaday laba gool ku tuurtay naadigii hore oo English Premier League-na oo ciyaari jiro kulankaas ka horna 5 gool ku lahaa laba gool ku darsatay 7 gool ayuu ka dhaliyay waayiis ka hore maasha naadiyaasha ka tirsan English Premier League qaasatan Newcastle Manchester waxaa leeyahay 5 kulan ee dhashay 94 shoot ayay sameysay bandhigeeda muxumo shabaq inay gaarto ayaa diidan marka waa la arki doonaa kulanka maanta ee Chelsea ciyaar doonta ninkii Amran ahaa taariikh xumo haysto waxaa leeyahay inta Manchester hadda uu jooga waa iska yartaa horta McTominay iyo Rashford iyo Garnacho xidig badan baxeen Onana wax dad badan baxay Sancho baxay marka waa arki doonaa sidoo kale waa xidiga hadda weli uu fiican rajada laga leeyahay jiro waxa kamid ah leeyahay Anthony Elanga oo wacda reenayo oo asiga isku badishtay Nottingham Forest haatan Newcastle joogo marka ciyaartoydii aad ay oo fiicnaa ayaa leeyahay ilaa kuwaayay Manchester ayaa diidana ninkii Erling Braut Haaland ahaa waa xidiga ugu dhaqsiyaha badan ee 50 goal Champions League ka gaar ayaa leeyahay waliba kulamo ka yar inta kale waxaa leeyahay asoo soo ciyaaray Red Bull Salzburg Borussia Dortmund iyo Manchester City 49 kulan ayuu ku gaaray ayaa leeyahay 50 gool ugu horeeyay ee Champions League inaba caadi maan Van Nistelrooy ayaa la arkaa asiin PSV Manchester iyo Real Madrid ku gaaray 62 kulan 50 gool inaba caadi maan Lionel Messi oo Barcelones ah 66 kulan ay ku qaaday 50 gool ugu horeeyay Robert Lewandowski oo Bayern Munich iyo Borussia Dortmund ahaa ayaa leeyahay haatan Barcelona ku dambeeyay 77 kulan ay ku qaadatay 50 ugu horeeyay sidoo kale 79 kulan ay ku qaadatay kale Mbappe asoo majahay Monaco sidoo kale PSG iyo Real Madrid intaba soo ciyaaray 79 kulan ay ku qaadatay marka unbelievable waa ay leeyahay xidiga Erling Braut Haaland oo top player top player waa marka ninkaas si oo wax walba u qabsado wuxuu noqonaa nin caadi ahayn inaba caadi maan marka waa arki doonaa insha Allah wax walba kulamada maanta ku saabsan waan isla joognaa oo muuqaaladeena dambe ayaad kala socon doontaan wax walba oo ku saabsan kulamadaas marka naadi kubadda cagta Chelsea ayaa 12 kulan oo xiriira Old Trafford ee booqdeen wax guul aysan gaarin marka waxa leeyahay maanta waa maalinta la soo afjar la taariikh hore badan oo jirtay ninkii Solskjaer ahaa iyo ninkii Ten Hag ahaa ayaa soo baabi'een maantana wixii yar hareena ninkaan hadda soo gabagabeena Manchester United marka waa arki doonaa insha Allah muuqaalka doog soo gaarno fadlan like noo saar intaas ayaan ku soo gabagabeena inta ku kulmeen muuqaalka xiyo insha Allah waxaan iga tagi doonaa sidaas iyo amaano Allah